haddaan gam'i waaye habeenkii galgasho aanan seexan waa qayb ka mid ah heesta Soomaaliga ah ee uu isticmaalay aqalka cad ee Mareykanka. haddaba maxay tahay qisada heestan iyo sababta ay u isticmaaleen aqalka cad? muuqaalkan oo dhawaan lagu baahiyey barta aqalka cad uu ku leeyahay TikTok ayaa saameyn weyn ama falcelin weyn ka abuurtay baraha bulshada Soomaalida iyo kuwa dadweynaha kale ee caalamka. sawirada la saaray heestan ayaa ah qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga oo ka kala tirsan aqalka Koongareeska iyo kan sanadka. muuqaalkan kama muuqato faalo ku saabsan heestan, balse waxa ciwaan looga dhigay weed micnaheedu ahaa in dimuqraadiyiintu shaqada dowladda Mareykanka ay u joojiyeen taageero ay u muujiyeen qaxootiga sharci darrada ah. guuba da'al yiri geelba dhalal yiri aan soo godlay gorofka keen. heestan waxaa la yiraahdaa gorof waxaana qaaday Sahra Abukar Sahra Dawo 1988 waxayna ka tirsaneyd koox faneedkii Durdurbaan ee Soomaaliya.